wadatashiga labadii maalmood ee u dambeeyay magaalada Muqdisho uga socday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ku soo idlaaday bilaa natiijo waxaana lagu kala tagay goobtii shirka iyada oo aan wax warmurtiyo la isku raacsan yahay laga soo saarin dhamaadkii kulanka shirkan oo soo bilowday maalintii shalay ahayd ayaa galay caanamaalkiisii labaad waxaana maanta qayb ka ahaa shirka xamse cabdi barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe iyo sidoo kale Cabdi Xaashi sidaan tabinadeennii hore ku sheegnay shirka ayaa waxaa looga hadlayay qodobo u badan arrimaha masiiriga ah ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay hore u gaareen golaha wadatashiga qaranka oo ay ka mid ahaayeen nooca doorashada qaranka nidaamka madaxtinimada dalka hanaanka xisbiyada badan guddiga doorashooyinka qaranka mideynta muddaxileedka hay'adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo habraaca dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka dalka sida ay shaacisay filla Soomaaliya 6 qodob ayaa waxa ay madaxdu aad ugu lafa gureen shirka iyada oo siyaasiyiintu soo jeediyeen talooyin kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo intii ay wada hadalladu socdeen shirka maanta oo muuqday mid gunaanadkiisu fashil ku soo dhamaaday ayaa geesta kale waxaa jiray qodobo muran badan uu hareeyay adkeeyena xaaladda wada hadallada waxaana ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka dalka iyo wax ka beddelka muddaxileedka hay'adaha dowladda labadan qodob oo filla Soomaaliya ay doonaysay inay meel mariso horeyna uga cadaysay qaraarkeedii golaha wadatashiga qaranka balse mucaaradku diidmo cad kala hor yimaadeen waana tan keentay in gebi ahaanba uu macno beelo shirkii labada maalin ka socday magaalada Muqdisho.